waliba geeka magaalada Baydhabo xarunta ku meeldirka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya hadeeri taliyaga qaybta 6aad General Ibrahim Aadan Yarow oo mudooyinkan ka dambeeyay safar shaqo oo ka maqnay magaalada caasimada ee Muqdisho garoonka dayuuradageynka ee magaalada Baydhabo ya waliba ka dhawaayay saraakiil ciidan oo qaybo shal gadisan leh inka dambeyntina waliba TV-ga dawladda koonfur galbeed Soomaaliya inka warbiyay safarkii shaqo General Ibrahim Aadan Yarow hataba waa ko sooninka warbiyow بالعالمين مدوينكان waxaan ku maqnay gobolka Shabeellada Hoose oo sectoralization-kii la sameeyay oo qaybaha labada guutada 6aad oo degan gobolka Shabeellada Hoose oo ugu baalaysa ilaa Baraawe iyo guutada 7aad oo iyadana degan Afgooyo ilaa iyo Balidogle labadaasi guuto oo runtii ku soo biiray mar dhow ayaan aaday oo aan maalmahan shaqo ahaan ugu maqnaa intii muddo ah runtii talis oo carbiska laga sameeyay oo qaybtu ay leedahay ayaa jiray isagana howlahaas ayaan ugu maqnaa taliska qaybta ugu maqnaa muddadii aan maqnaa runtii in badan waa soo qabanay oo ay hirgashay iyadoo ay hawshaasina gacan igu siiyeen taliyaha ciidanka xoogga iyo bandulayaashiisa iyo contingent commander-ka oo Uganda General Paul oo isagana runtii hawshaasi aad ila fududeeyay runtii hadda taliska labaad wuxuu noqonayaa carbis oo runtii aan hadda ka soo tagay waana loo baahan yahay in loo helo meel talis ah oo laga maamulo si labada talis midkaas ku meel gaarka ah ee carbis iyo kan rasmiga ah oo Baydhabo ah runtii labadaasi guutana howlo aad u fiican ay hadda dhulkaasi ka hayaan oo ay ka shaqeynayeen iyadoo hadda markii ugu dambeysay dagaalkii 120 qof ay ku dhimatay oo Buulamareer ay Amisom iyo hal mar la wada weeraray guutada 6aad ururka kamid ah ee hadda degan Buulamareer ayna kaga guuleysteen iyadoo guutada 7aadna ay hadda dhaqdhaqaaq fiican ka wado nawaaxigan degmada Afgooyo ilaa iyo Balidogle oo Jambaluul si joogto ah u tago taliyaha guutada 7aad oo uu shaqo fiican ka haya isagana runtii hawshuna waxa soo dhaxgalay xoogan roobka insha Allah taala waqtiyada soo socda hawlgal rasmi ah ayaa la qaadi doonaa oo dawladda dhexe ay qorsheynayso iyo taliska ciidanka xoogga oo meel walbana ka dhici doona insha Allah taala Sergito KGS TV Baydhabo